waxaan isku daynay waan isku dayay in arrintaa inaan wax ka qabto qosas ka bilaabo wada hadal waxaan u yeeray qaar ka mid ah aniga xildhibaan gudoomiyaha labaad xildhibaanada labadii dhinac waday runtii waxaan jeclaystay inaan arrintaa maanta dib u dhigano hawlaha kale noo yaalana aan qabsano arrintaasaan ku talagalay xildhibaan Maxamed Xasan xildhibaan Mukhtaar meerano labada dhinac markaan u yeeray Cali Xaamid arrintaasaan rabay inaan gudoomiyaha ku qanciyo maadaama xildhibaanada majority iyo goluhu uu dibadda istaagay oo aan golaha soo galin arrintaa inaan xal ka gaadhno ayaa runtii aan u galay waan ka hadalay gudoomiyaha xildhibaanada labadii markay tageen runtii markay golaha soo galay waan haddana way hadleen hadalka shirka jira dama runtii ma jeclaysan wana golaha soo gali waayaan haddana hadalka la raacay xogaa ma jeclaysan hase yeeshee aniga oo raba in arrintaa inaan ku waxaan ku talagalay inaan ku qanciyo gudoomiyaha arrintaa maanta maadaama golihii intii badan maqan tahay sida sharci u dhigayana qodobka sharci afartanaad ee dastuurka farqadiisa labaad ay tahay in quorumka buuxo waxaan u jeclaystay arrintaa inaan ku qanciyo gudoonka dadaal badan ay gudoomiyaha kala wadaan galay arrintaasi may dhicin dabadeedna shirkisaasuu noogu furmay shirkigii gudoomiyuhu ku furay markaan dareemay shirkigii gudoomiyuhu furay waan u arkeeyey in aanay maslaxadda soo dhaweynta labada dhinac aanay sax ku ahayn anigu runtii waan soo baxay waxaan markaa rabaa khalad badan baa maanta gola ka dhacay waxaa ka mid ah ciidanaan dalbasha guddoonku in loo yeero waa khalad arrintaa ma soo dhaweynaya runtii waa ka xumahay guddoonka isaga ciidanka u baahan waxaan kaloo aan raalli ka ahayn u arkaa in arrin khalad ay tahay waana dastuurka saxka qodobka 54aad farqadiisa labaad dastuurku wuxuu qoraya kalfadhi kasta oo furmaya inuu noqdo kala bari wax ka badan sidaa daraaddeed waxaan qabaa oo sharcigu qabaa dastuurku qabaa inaanay fadhiga maanta aanu ahayn mid sharci ah waxaan soo jeedinayaa hal imikana aan bilaabay in la sameeyo guddiyo labada dhinaca guddoonkana aan ka wada hadli doonaa inaan golaha soo jeedino inaan soo dhaweyn aan ka shaqeyn doono insha Allah waxaan rabaa inaan shacabka gaarsiiyo dhagahooda waa golo siyaasadeed dabcan muranka iyo buuqa waa iska iman karaa laakiin waxaan u sheegayaa rag mas'uuliyadda ku filan baa jooga waan iska xilqaabaynaa aad iyo aad baan iska xilqaabaynaa runtii waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadsantihiin jidadaan leeyahay waxa weeye wixii maanta dhacayna waa ka xunahay shacabkana waa ka raali gelinaynaa dibna u dhici mayso waxaanu u samayn doonaa xildhibaanada laba dhinac guddiyo waa buuro si aanu uga baxno fowdadan oo la isku soo dhawaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum.